waxaa maanta ina soo gaaray in qaar ka mid ah warfaafinta gaarka loo leeyahay madaxa bannaan faafiyeen warar been abuur ah oo sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ka codsaday dawladaha dariska ah ee ciidamadu ka joogaan Soomaaliya inay ciidamadooda ka baxaan. haddaba waxaan doonaynaa in madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliya ay halkan ka cadayso in warkaasi uu been abuur yahay oo aanu sal iyo raad toona lahayn. website-yada wararka qoray ma ahan website-yada dawladda ay leeyihiin mana aha kuwo warkooda la qaban karo. dhammaan saxaafadda iyo dadka waxgaradkana waxaynu u sheegaynaa warkaasi ahayn war raad leh. sidoo kale waxa aynu jecelahay munaasabadan kaga faa'iideysano in aynu qeexno marar badan lagu celceliyay in siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya ee federaalka ay ku dhisan tahay iskaashi iyo walaaltinimo kala dhaxaysa wadamada oo dhan gaar ahaan wadamada dariska ah ee ay ugu horeeyaan Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti. dadka Soomaaliyeed oo dhan waxa ay og yihiin dowrka taariikhiga ah ee dawladahaas iyo shacabkooda eegteen badbaadinta dadka Soomaaliyeed xilligii burburka lagu jiray iyo garab istaageen dawladnimada Soomaaliyeed iyo in laga baxo kubakii oo Soomaaliya maanta ay u gudubto dawlad rasmi ah oo dadka Soomaaliyeed ay wada leeyihiin. dawladdu waxa ay mahad celinaysaa dawladahaas gaar ahaan dawladda Kenya iyo dawladda Ethiopia iyo dadaalada dheer ee loo galay in nabad lagu dabaalo gobolada dalka Soomaaliyeed iyo in laga xoreeyo kooxaha nabadiidka ah ee argagixisada ah ee doonaya in Soomaaliya ay ku sii jirto burki iyo qaski inay ku sii jirto. waxaan kaloo doonaynaa inaynu aad u cadeyno in xiriirka ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladaha Kenya iyo Ethiopia waqti dheer yahay. muddadii la soo dhaafay 6 toddobaad ama 7 toddobaad ee la soo dhaafayna waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la kulmay madaxweynaha dalka Kenya ee cusub madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia muddo 5 jeer ah. sidoo kale waxa ay leeyihiin xiriir joogto ah oo uga wada hadlaan sidii la isu kaalmaysan lahaa dariska iyo dadka Soomaaliyeed ee wax wada qabsan lahaayeen Soomaaliyana dhibaatada ay uga bixi lahayd. waxa aan doonayaa mar kale inaan ku celiyo in hadallada been abuurka ah ay yihiin waxyaabaha la doonayo in khalkhal lagu geliyo ammaanka shacabka Soomaaliyeed iyo ammaanka wadamada dariska ah. dawladda Soomaaliyana ay tallaabooyin wax ku ool ah hore ugu qaadi darisnimo wanaagaas haddana ay hore ugu sii qaadi doonto. ugu dambeyntii waxa aan jecelahay saxaafadda xorta ah iyo waxgaradkuba inay ka digtoonaadaan ama ka fogaadaan waxyaabaha dhibka u keenaya khalkhal gelinta ummadda Soomaaliyeed ama wax u dhimaya ammaanka dalkeena iyo dadkeena. aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.